السلام عليكم daawadayaal. Maanta waa Farax Cabdi Maxamed Bade. You would have seen, inshallah, the video that I made demonstrating hand washing and the 7 steps to combating coronavirus. Inshallah, maantana waxaan sameynayaa a presentation kana waxaa soo dalbaday health professional Somaliland jooga oo aan halkan ka salaamayo, in particular the Dr. Edna Aden Foundation, as well as many others. Inshallah, waxaan ilaahay ka rajeynayaa inay wax caawimo leh ha noqoto. Inshallah, anay wada ogtihiin family physician baan ahay for nearly a decade now. Waxaan also halkan ka sheegayaa Dr. Shadi Ahmed microbiology slides ka soo diyaarisay, and Dr. Adnan Hirad uu soo diyaariyay epidemiology slides ka. Aad bay mahadsan yihiin. Aims of this presentation, horta marka hore waxaa laygu iri af Somali iyo af Ingiriisiba waxa lagu sheego, marka inshallah waan dadaalayaa, laakiin ogaada waxaa jira kelmado af Ingiriisiya, waliba academic research iyo waxyaabahaas oo kale oo aanan af Somali aanan lagu jurjubi karayn. markaynu meelaha marayno af Ingiriisi baan ku sheegi. Inshallah, health professionalskuna badni af Ingiriisi bay wax ku barteen, ku tooba barteen. Marka inshallah hadday jawaabina jiraan, inshallah hoos ku soo qora. Marka maanta waxaan ka hadlaynaa coronavirus definitionka, epidemiologyga ilaa iyo inta presentationkan aan qoriyay April, microbiologyga, public healthka, sidaad hospitaalada iyo community clinicska aad hot iyo cold zoning aad u samayn lahaydeen, sidaanan dadka coronaviruska qaba aanan dadka kala qabadsiin, iyo sidaad PPE aad u gashan lahaydeen. PPE-na waa personal protective equipment. Marka waxyaabahana waynu ka hadlaynaa. PPE-gu kala gaar bay yihiin. Mid baa communitygana lagu xidhadaa, so private clinicska iyo hospitaalada. Qayb labaadna way soo socotaa oo ah takhaatiirtii nurseska hospitaalada ka shaqeeya, nursing, ICU iyo surgical. Marka qaybta labaadna inshallah way imanaysaa. Videogana inshallah dhowr qaybood buu noqonayaa. Lectureku way dheer tahay. All of the information baan idin siinayaa from beginning to end coronavirus, sidaad aad u fahantaan. Markaad gunta laga fahmo bad inshallah waxaan ilaahay ka baryayaa inuunan cudurkani siduu Maraykanka iyo Yurubka idinkugu noqon. Marka ugu horeysa, anigu waa channelkan YouTube kan soo dhigi, waa sida ugu degdegsanay dadku ay u daawan karaan. YouTube-kayga already dad badan baa hand washingkii ka arkay iyo 7 step videogii. Marka haddaad u baahantiin inaad videogan dib u heshaan, magacaygaad ka baadhi kartaan. Worldwide prevalence. Marka slidekan waxay idin tusaysaa that 4 April 1 million cases baynu gaadhnay cudurkan. 60,000 oo dhow qof baa ku dhintay. 208 wadan bay kaga dhacday. Cudurkani waa cudur aan la arki jirin, maadaama waxyaabo mucjisooyina ayaa dhacay markii cudurkani dadka adduunka ku faaftay. Kacbadii xaaladii waad la socotaan. Sanadkan cumradii waa la joojiyey. Slidekan waxaan ka helay Arab News Agency oo leh coronavirus apocalypse. Waxay leeyihiin 1000 years, 1000 sannadood baan la arkin kacbadii oo saa u madhan. Public health measuresku waa informationka aynu siin karno shicibka Somaliland iyo Soomaaliya iyo meel kasta dadku ay joogaan. Dadka waa in la xasuusiyo inay waxyaabaha simpleka ah
sida gacmaha oo la dhaqayo, dadka oo kala fogaanayaan, qofka meel kasoo dhoofay oo meel xanuun leh kasoo dhoofay waddan kala imanaya inuu quarantine galo, qofku hadduu waddankiisa ku dhex xanuunsadana inuu self isolation galo, dadka kale iska ilaaliyo. waa waxyaabaha muhiimka ah ee WHO yiri waa waxyaabaha cudurkan joojin kara inuu faafo, breaking the chains of transmission. laakiin xasuusta cudurkani dhibaatooyin kale buu keenaa. cudurkani dadka warwar buu ku ridaa. dukaanadii waad aragteen Yurub, dad badan baa warwaray inay cunto waayaan, inay paracetamol waayaan, inay saabuunta gacmaha lagu dhaqdo inay waayaan. subxaan allah. marka warwar bay dadka ku abuurtay aan la arki jirin. marka taladu waxaan idin odhan lahaa isdiyaariya, alaabtiina sii diyaarsada. waxba ilaahay baa la tala saartaa, ilaahay baa la isku xidhaa, laakiin idinkuna waa inaad yaraysataanna maaha. waa inay dadku ay iscaawiyaan oo isla shaqeeyaan. qof kastana waa ina la qiimeeyo wuxuu samayn karo. dadka cuntada soo deliver gareeya ee iibiya, suuqyada ku iibiya, dadka aad sonkorta, daqiiqda, waxyaabahaasoo kale ka iibsataan, dadka wax maydha, xashiishka gura, dadkaasoo dhani waa muhiim weeyaan. cudurkani markay magaalada soo gasho waayo deh, haddaa cunto la waayo, haddaa qof wax nadiifiye la waayo, haddaa xashiishkii la qaadi waayo, cudurkii wuu sii faafiyaa. marka waa muhiim weeyaan in dadkaasi la qiimeeyo, inay dadkaasi dareemaan ina la caawinayo, la kaalmaynayo. waxyaabahaas waa waxa muhiimka ah. waddankan dadkiiba waxaaba la iriba waaba dagaal weeyaan. waxaad ka fikirtaa in dagaal lagu jiro. marka dagaalka lagu jirana dadka oo dhan waa inay isku duubnaadaan, inay dadku murmaan oo waxyaaba micno leh in laisku qabqabto ma fiicna. waxyaabaha muhiimka ah waa in laisku wada raaco. nadaafadu waa muhiim weeyaan. nadaafadu waa diinta qayb barhkeed weeyaan. marka waa waxyaabaha diinteena islaamka nabi maxamed sallallahu alaihi wasallam markasta dadka waafin jiray inay dadku nadaafada ilaaliyaan. baryihii horena daacuun baa la arki jiray, dadka quarantine baa lagu ridi jiray. marka xadiisyadoo ka arooray baaba jira waxaas. cuduradan pandemic la iraahdo waxyaaba la arki jiray weeyaan. slidekani waxay ku tusaysaa black deathkii 1347 ilaa 1351 200 million people baa ku dhintay. smallpox 56 million baa ku dhintay. spanish flugii 100 sannadood ka hor 40 ilaa 50 milyan baa loo mareeyay inay ku dhinteen. plague of Justinian 30 ilaa 50 million. HIV AIDS 25 to 35 million. markaa sidaa ayaad arkaysaan. pandemia waa waxyaaba la arko cuduradu infectionka ee adduunka oo dhan ku faafaan. waxyaaba la arki jiray. imika waxaad arkaysaan SARS 2002 ilaa 2003 only 770 compared to MERS 850. inagu imika waxaynu soconaa 60,000. slidekan waxaa la qoray the 15th of March, marka nearly 1 month ago. this slide waxay idin tusaysaa timelineka. marka haddaad arrowska ila raacdaan, December 2019 Wuhan waa magaalo dalka Jiinaha ku taala. waa meeshii ugu horeysay ee cudurkan lagu arkay. cudurkan waxaa loo maleeyay inay meel suuq xayawaanka lagu kala iibsanayo inay halkaa ka bilaabantay. marka slides kalaan hayo more information isiini, laakiin this is timeline weeyaan. waa siday cudurkii Wuhan ku bilaabantay, siday adduunka ugu faaftay.
laakiin 3 wadan baan imika halkan tusayaa. Waa siday ingiriiska ugu timaaday, because anu ingiriiskan deganahay, marka informationka waan hayaa, iyo also World Health Organization baan ka eegay websitekiisa. Informationka Somalilandna waan hayaa. So ingiriiska, first case was 31st of January. 2 qof oo dalka Jiinaha ka imaaday ayaa la helay inay positive yihiin. 6 Marchna waa qofkii ugu horeeyay UK-ga cudurka ku dhintay. 16 Marchna hadda waa 10 maalmood qofkii ugu horeeyay, ilaa waxaa 10 maalmood waxaa ku dhintay 1000 ayaa 10 maalmood ku dhintay. Waxaan idin tusiyaa siduu hore u faafay. Okay, 938 qof dhinteen, ay 1500 oo dheeraadana infectionka laga helay. 20 March iskuuladii waa la xiray, lockdown ba ingiriiskii lagu riday. Markaana waxaad arkaysaan haddaad timelineka hoose eegtaan, 16 March waa kayskii ugu horeysay Soomaaliya oo xamar inugu u naqaan ayaa laga helay the first case. Then marka la baaray kayskani waxaa la helay waa Somali citizen Jiinaha ka soo noqday. Somalilandna first casekii waxaa laga helay 1st of April, 1 bisha April. waa 2 qof, nin dalka Jiina ka imaaday oo asalkiisa halkaa kasoo jeeda oo Berbera kayska lagaga helay, iyo qof kaloo Burco UK-ga ka imaado Burco tagay. Markaana Soomaaliya xamar 7 April caseski 7 marayaan, laakiin waa dad soo travelay. Kayskii 8aad waa nin aanan meel soo travelayn baa laga helay. Maantana waxaa lasoo sheegay qofkii ugu horeysay xamar ku dhintay. Marka waxay tusaale idin noqonaysaa sida cudurkani say u faaftay 3 meelood: UK, Soomaaliya iyo Somaliland. Marka coronavirusku muxuu yahay? Waa virus ku bilaabantay magaalada Wuhan ee China, waxaana ay koos garaysaa pneumonia, samabyadii biyo gelisaa. waxaana lagu magacaabaa 2019 nCoV oo novel new coronavirus. Slide-kani waxay idin tusisaa virology-ga. Waa viruska ka microscope-ka lagu eego siduu u eg yahay. Marka af Ingiriisi baan kan ku sheegi. Human coronaviruses dhowr nooc weeyaan. And they cause mild respiratory illnesses. SARS-CoV, MERS-CoV are 2 fatal coronaviruses which have emerged over the last 20 years. They are positive-stranded RNA viruses. The corona part of the name comes from the crown-like surface projection seen on the micrographs. They are divided into 4 genera, and it's actually the beta coronavirus that's the one currently affecting the pandemic. So, how did this happen? Well, the virology is that coronavirus or SARS-CoV-2 causes the disease known as COVID-19. As we already said, it belongs to the beta coronavirus subgroup, closely related to 2 bat SARS-like CoV, i.e. these are zoonotic, they come from animals. 2 different types of SARS-CoV-2 have been identified, type L and S. Like SARS, SARS-CoV-2 binds to the angiotensin-converting enzyme 2 or ACE2 receptor, and a lot of our pharmacologists will know that we have had a lot of calls from patients asking whether they should take their ramiprils
lisinopril, so the ACE inhibitors. And so this has implications. Knowing that it binds to this receptor has pharmacological implications. It's important knowing all of this stuff. Now, on the left, it's showing you that there's an intermediary host between the bat and the human. And the feeling is that it is a pangolin. This is taken from the New York Times from headline on the 5th of March. As we know, pangolins, any of you who have visited China or have Chinese friends, are considered a delicacy. However, they are a very endangered species. They are highly trafficked in China and certain parts of Southern Africa or Western Africa, where they are used in traditional medicines. And this has been the case for a very long time. But it was thought that in Wuhan, a wet market meant that pangolins, bats, and a lot of other trafficked wildlife, some of which is sadly endangered, all came into contact and caused a zoonotic virus to be transmitted to human beings. This has implications. However, at the current time, the pandemia health and welfare effort means that these implications cannot be fully ratified. However, it's important to know that this was the likely origin, and it's thought that 2/3 of the original cluster of patients in Wuhan are thought to have got their illness this way. This is another slide just going over the important facts. So it's coronavirus, bats with an intermediary animal, likely a pangolin. Now, the way it's transmitted, sida loo kala qaadaa waa respiratory, candhuufta weeyaan, dhibicda yaryare candhuufta ka timaada. Either directly from droplets, qofku hadduu qofco hindhiso, ama hadduu qofku qofco hindhiso meel taabto, inuu qofka kalena taabto. At the moment, dadkoo dhan baa loo baqaa, laakiin xayawaan kalaa la taskireeyay. For example, tigers in America have tested positive. However, this is speculation and we don't know for sure. This is the proposed staging. This is an important slide. I know it's in small print, so I'll go over it carefully. Initially, the viral symptoms are mild constitutional symptoms. Waa cudur marka hore fudud, waxaa dadku qandho, xumad, qofac, madax xanuun, caloosha kugu socota marka hore. Haddaad dhiig qofka ka qaadid, waxaa laga yaabaa inay dhiigooda cad ay hoos u dhacsan tahay, ama ay haystaan waxyaabo kaloo dhiigaga laga baadho. Halkaasi ku qoran yihiin prothrombin time, kor buu u mari karaa, increased D-dimer and LDH. Halka hoosena waxaa ku qoran dawooyin loo maleeyay inay dadka kaalmeyn karto, laakiin dawooyinkani randomized control trials may soo marin, so wadamo badan ma isticmaali karaan. Laakiin dhakhaatiirtu markay qof daweynayaan serious oo khatar ku jira, kolkol waa la arkay dawooyinkan oo la isticmaalay dadka caawiyay, laakiin side effect badan bay leeyihiin. Marka liskuma wada raacsana inay sax tahayna dadkan dawooyinkan la siiyo aanan randomized control trial gelin, because randomized control trials waxaynu ognahay inay yihiin the gold standard oo dawooyinka dadka loo kala siiyo. Marka waxaan oranay stage 1 waa cudurka fudud, waa viruskii oo xumad, qofac, madax xanuun ama caloosha ku socota. Haddii cudurkaasi kaa bixi weydo, second stage baad galaysaa. Waa adigoo neefta kugu dhegto,
oo oxygenka kugu yaraato. Markaasoo kale badni dadku hosbitaal bay galaan, waa marka ay halis tahay. X-rayguna haddaa markaasoo kale lagaa qaado waxaa laga yaabaa inay aan caadi ahayn. Dhiigana marka lagaa qaado markaasoo kale liver function tests ayaa kacsan, transaminitis baa la yiraahdaa, and other blood abnormalities, procalcitonin for example, but inta badan dadka procalcitonin lagama qaado. Haddaad then cudurkan ay kugu sii xumaato, stage 3 baa jirta. Imika waa autoimmune effect, waa qofkii jirkiisii oo imika kacay oo cudurkii kusii xumaynaya. Markani waa marka ay ugu halisan tahay. Qofku ARDS, sepsis, SARS, shock, wadnihii oo istaagay, waa khatar weeyaan. Waa marka qofka waa in intensive care unitka lala cararo. Way yar yihiin dadkani, boqolkiiba waxa loo maleeyay 5 ama ugu badni 10. weliba kuwa ventilatorka la geliyay boqolkiiba 5, laakiin waa kuwa halista ah. Markaasoo kale dhiigagoodu waxay sheegayaan elevated inflammatory markers, CRP, LDH, ESR, troponin, wax kasta, because organskii waa failure ku dhacaya. Sepsiska aynu si gaar u eegno. SARS waa Systemic Inflammatory Response Syndrome. Marka waa markuu qofku uu temperature leeyahay 38 ama hoosii dhacsan tahay, heart rate over 90, respiratory rate over 20, and then white cellsku ay kacsan yihiin ama ay hoos u dhacsan yihiin. Qofkaasi markuu sepsis galo waa isagoo SARS leh oo infection laga helay, blood culture, urine cultureka laga helay, infection confirmed. Qofkiina hadduu sabee sepsis galo waa sepsiskii oo organ failure ku dhacay. Then shock waa isagoo blood pressurekiisii hoos u dhacay, organskiisii failure ay aad ugu sii noqotay. Slide-kani waa slide aan marka anigu 20 years ago jaamacadda ku jiray I found useful, laakiin way isbedeshay. Imika waxaa la isticmaalaa SARS. So on the left hand side waxaad arkaysaa SARS-kii, laakiin Q so far lagu daray, because SARS-ka waxaa ka maqan Glasgow Coma Scale. We know qofku markuu aad u xanuunsanayo sepsis ku jiro, confusion baa ku dhacda. Marka Q so far it takes into account the GCS. ARDS is Acute Respiratory Distress Syndrome. Waa markay samabiyadu ay failure ku jiraan, wada biyaa galay. X-raygaasina waxay idin tusaysaa qof ICU jooga oo samabiyadii ay biyo galeen. Cudurkani markay ugu xun tahay dadka u xambaalaysaa. Qofkan oo kale wuxuu u baahan yahay ventilation. Case studies baa China laga keenay. 1,000 qof oo China hospital ku jira ayaa la eegay. 1,000 waxaa loo kala qaybiyey dadka severe disease 16%, ICU 5%, then mechanical ventilation 2%, so 2% of the 999. Kunkiina waxaa ku dhintay 1.4%. Dadkii health workerska caawinayay dadka 2% baa cudurkani ku dhacday. Waxaad arkaysaan dhiigagii, blood resultskii waxay laababkiina tusayaan inay ugu badni abnormal CT ayay badni dadku arkaan, white cellskii hoos u dhacday oo lymphopenia la yiraahdo, iyo plateletskii. Inta badan white cellskii oo kor u kacay way yar tahay, inta badan hoos bay u dhacaan. Talyaaniga slide-kana laga keenay 15 March bay ku eeg tahay. Marka Talyaaniga waxay hayeen 22,000 oo qof oo COVID
19 qaba. 2,000na waa health workerskii. Marka waad arkaysaa inay dad badan oo health workersku ay qabaan cudurkan. 1,600 maalintaasina way dhinteen. Marka loo kala qaybiyo age, gender, hadduu gabadh yahay ma nin, ama severitygana pie chartska hoostaad arkaysaan. Marka dadkii da-doodii la eegay, waxaa la arkay dadka yar 0 ilaa 18 inay percentagekooda aada hoos u dhacsan tahay, boqolkiiba 1%. 19 ilaa 50 waa 24%. 51 ilaa 70 waa 37%. 70 years and above waa 37.6. waxaa la yidhi median ageka cudurkan waxay ku dhacdaa 64. laakiin runtii qof kasta way ku dhici kartaa, ama underlying health ha haysto problem, ama yuunan haysan, cid kasta way ku dhici kartaa. cudurkani wadana ma kala garanayso, da'na ma kala garanayso. marka walaalayaal is ilaaliya. marka loo eegay dumar iyo rag, raggii 57, dumarkiina 40%. severityna waa kaa, badni waa mild weeyaan, severe waa 24%. iminka public health measureska UK iyo wadamo badan oo reer galbeedka waa flattening the curve. meel kasta hadaad tagtid Twitterka waxay laga hadlayaa flattening the curve. dad badan baa i weydiiya maxay ka wadaan, marka af Soomaali baan ku jawaabayaa. flattening the curve waxaa looga wadaa, waxaa la rabaa inaynan dadku cudurku aynan sii faafin, oo kol aynan dadku wada xanuunsan. hadday kol dadku wada xanuunsadaan, garaafku wuxuu ekaanaysaa garaafka cas ee casaanka ah, dadkii kol wada xanuunsaday. markaasoo kalena hosbitaaladii dadkii ma kala eegi karaan, dhibaatay koos garaynaysaa, sariiraa la kala waayayaa, ventilatoraa la kala waayayaa. marka waxaa la rabaa inay dadkii aynan kol wada xanuunsan, ay different times ay kala xanuunsadaan, oo waxaa la rabaa inay cudurkan aanan sida casaanka, curveka casaanka uuna faafin. marka waxaa la rabaa inay sida bluega u ekaato, ay hoos u dhacdo, oo aynan dadku wada mar xanuunsan. sidee markaa loo samayn karaa? waxaa loo samayn karaa gacmaha oo la dhaqo, maryaha PPE-ga la qaato, face shieldka, weliba dadka caafimaadka, face shield hadday qof la og yahay oo positive case ah, a known case, face shield waa inay qaataan, masks, disposable gown, gloves. because waayadhe qofka health workerku hadduunan is dhowrin oon cudurkan iska ilaalin, health workers way nagu yaryihiin everywhere, but Somaliland waa even less. marka haddaa la qabadsiiyo, qofkaas wuu xanuunsanayaa, dad kale ma arkayo, ama dadka kaluba ku faafin karaa. marka waa muhiim inay dadka caafimaadka waa inay haday caseska la deal garaynayaan PPE qaataan. dadka kalena waa inay falxashaan, waa inay socially distancing sameeyaan, waa inay kala fogaadaan. hadday xanuunsanayaan waa inay guriga joogaan, hadday mild illness tahay, oo hadday aada u xanuunsadaan in dhakhtarka la xiriiraan, marka hore telephone, marka kalena emergency. waxyaabahaasa koos garaynaya inaynan dadka kol wada xanuunsan, oo dadka dhakhaatiirta aynan dhibaato ku ridin. iminkana waxaynu eegaynaa microbiology slideska. iminka waxaynu ku eegnahay 29 minutes, 30 minutes baan ugu dhaaftay oo lectureska. marka halkaas part 2 baan marka dambe soo upload garayn.